Okay, sii soco 25,000 oo iftiin sanadeed. Kor u sii soco 50,000 oo iftiin sanadeed. 80,000 oo iftiin sanadeed. runtii haddaad si fiican u daawato samada habeenkii waad la cajabaysaa quruxda iyo weyninka uu Ilaahay u abuuray. balse inta aad aragtay waa inta keliya ee markaas indhahagu ay qabteen oo aad la yaabtay baaxadda iyo weyninka ay ku fadhiso samadan. laakiin xaqiiqatan koonkan aad u jeedo inta uu la eg yahay iyo inta aad u malaynayso runtii waa laba wax oo aad u kala fog oo aanan marnaba la isbarbardhigi karin. waa wax caqliga bini'aadamka inuu sawirtay iska daayay xitaa uusan qiyaasi karin. dabcan markaad cirka habeenkii aad daawanayso waxa keliya ee markaas ku muuqda ayaa waxay tahay xidigo iskugu jira kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn oo qaarba qaarkooda kale ay ka iftiin badan yihiin. laakiin ma qiyaasi kartaa xidigahaas iyo meerayaashaas aad u jeedo midka noogu dhow masaafo ahaan inta uu noo jiri karo. tusaale ka soo qaad meeraha Maaris ama Mariiqa wuxuu dhulkeena u jiraa celcelis ahaan 225 milyan oo kiiloomitir. tiradaasna waa inta ay badanaa celcelis ahaan isku soo dhowaadaan labadaas meere. balse taariikhda markii ugu horreysay ay si dhow iskugu soo dhowaadeen labadan meere ayaa waxaa la diiwaan geliyey sanadkii 2003 oo ay isku soo dhowaadeen masaafo dhan 54 milyan oo kiiloomitir. mar kalena ma dhicin inay dib iskugu soo dhowaadeen taariikhda wakhtigaas kadib. balse waxaa macquul ah oo la xisaabiyey inay mar kale dib iskugu soo dhowaan doonaan sanadka 2237. haddaba haddii ay sidaas tahay maxay kula tahay adiga inay noo jiri karaan xidigahaas iyo meerayaashaas kale ee cirka iyadoona ilaa iyo hadda uu tegin bini'aadamka meeraha noogu dhow ee Maaris? runtii intaan waxaan dhihi karnaa waa bilowga safarkeenna oo keliya oo aan rabno inaan ku tagno meelo aynan weligaa caqligaagu iyo indhahaagu aysan suuraysanin. balse haddaan rabno xoogaa inaan wax ka ogaanno baaxadda iyo xajmiga uu ku fadhiyo caalamkan cajiibka badan waxaa marka hore qasab ah inaan ogaanno halka aan kaga sugannahay caalamka. si aan taas u ogaanana waxaa laasim ah marka hore inaan sharaxaad yar ka bixinno baxqorxeedka aan ka tirsannahay. runtii sidaan wada ognahay wuxuu baxqorxeedkeennu ka kooban yahay 8 meerayaal oo kale ah: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus iyo Neptune, iyo dhagaxaan cirka haabta iyo weliba 146 dayax. waxayna dhammaantooda ku dul wareegaan qoraxda iyagoo ku jira goobo wareegsan oo loo yaqaano ellipse. dhulkan aan ku noolnahay waxay ku qaadataa si uu hal jeer ugu soo wareego qoraxda muddo 365 maalmood oo la mid ah hal sano oo kaamil ah. sidoo kale meeraha ugu dhow qoraxda ee Mercury ayaa isaguna waxay ku qaadataa si uu hal jeer oo keliya ugu soo wareego qoraxda keliya muddo 88 maalmood ah. halka meeraha Pluto oo ah midka ugu fog baxqorxeedkeena ay ku qaadato si uu hal wareeg oo keliya ugu soo sameeyo qoraxda muddo 248 sano oo safar ah. mideeda kale dayaxyo fara badan ayaa waxay iyaguna ku dul wareegaan meerayaasha qaar sida Jupiter. hadda waxaad suuraysataa meeraha Jupiter oo keliya ayaa waxaa ku dul wareega ama uu leeyahay 179 dayax oo kala duwan oo ilaa iyo hadda qaarkood aanan magac loo bixin. waxaana ugu caansan 4 dayax ee ku muuqata halka dhulkeenna uu leeyahay keliya hal dayax oo iftiimiya habeenkii. dabcan waad qiyaasi kartaa intaan kala ekaan karno meeraha Jupiter oo ah meeraha ugu weyn baxqorxeedkeenna. runtii haddaan isku dayno inaan ogaanno xajmiga uu ku fadhiyo meerahan waxaan u baahan doonnaa si aan ula ekaanno ama u buuxinno xajmigiisa oo kale 1300 oo dhul oo dhulkeenna oo kale ah. ama si kale haddaan u qiyaasno waa annagoo xabad qaraa ag dhignay isla mirta qaraha ama xabxabka uu leeyahay. meerahan aad u jeeddo ayaa waxay ku qaadataa si uu hal jeer oo keliya ugu soo wareego qoraxda muddo 12 bilood ah sida dhulkeenna oo kale. sidoo kale qoraxdeenna ayaa waxay tahay xidig aad iyo aad u weyn oo dhammaan ka xajmi weyn meerayaasha kale ee 8 ah. ogow markii lagu dhaho xidig waxaad ogaataa mar walba inuu xidigu yahay mid ka weyn meeraha kumanaan iyo kumanaan jeer. bal marka hadda waxaad qiyaastaa haddii aan barbar dhigno dhulkeenna qoraxda inta uu cabir ahaan kala ekaan karo qoraxda. dabcan qoraxdaas aad u jeeddo maalin walba inta ay la eg tahay xajmigeeda ayaa iyaduna waxaa ka sii xajmi weyn xidigo kale oo aad u waaweyn oo ka mid ah galagsigan aan ka tirsannahay ee Milky Way-ga. bal hadda fiiri xidigan oo kale intuu xajmi ku fadhiyo iyo intay la eg tahay qoraxdeenna. UY Scotty
xiddigan hadda kuu muuqda ayaa wuxuu noo jiraa masaafo dhan 9,500 oo iftiin sannadeed yacni iftiinka oo ah waxa ugu xawaaraha dheereeya ee maanta bini'aadamku yaqaano ayaa waxay ku qaadanaysaa iftiinkaas inuu gaaro xiddigaas 9,500 oo iftiin sannadeed weliba waxaad ogaataa in hal sano oo iftiin sannadeed ah ay u dhigmato 10 milyan oo kiiloomitir haddaba halkaas markii aan joogno haddii aan sii soconno maxaa dhici kara sii soco 25,000 oo iftiin sannadeed kor u sii soco 50,000 oo iftiin sannadeed 80,000 oo iftiin sannadeed haddaba halkaas markaan joogno waxaa noo soo muuqan doona 100 bilyan oo xiddigo ah oo dhulkeenna u jira masaafo dhan 100 bilyan oo iftiin sannadeed waxaadna ogaataa iftiinka xiddigaha kuu muuqdo markaad dhulka joogto inuu iftiinkaas malaayiin sano ka hor uu ka soo tegay xiddigahaas uuna intaas oo sano u soo socday si uu u soo gaaro dhulka haddaba halkaas markaan joogno ayaa sidoo kale waxaa noo soo muuqan doona majaradda ama galagsiga aan ka tirsannahay ee milki weyga sidoo kale galagsigan aan ka tirsannahay ee milki weyga waxaa laga heli karaa 17 bilyan oo meere oo shabbaha kan dhulkeenna oo kale bal waxaad sawirataa haddii 99% aysan nolol ka jirin bal suurayso in 1% xitaa ay nolol ka jiri karto majaraddan ama galagsigan aan ka tirsannahay ayaa waxay ka kooban tahay bilyanis oo xiddigo ah meereeyaal godadka madow dhagaxaanta cirka heehaabta iyo sidoo kale 400 oo bilyan oo qorax oo la mid ah qoraxda subax walba inoo soo baxda haddaba suurayso waxaad ka mid tahay caalamkaas iyo galagsigaas aad u jeeddo inta xajmigiisu uu la eg yahay maxay kula tahay marka dhulka aan ku noolnahay inta uu la ekaan karo iyo inta uu yaraan ka qabi karo waxaana jira 100 bilyan oo galagsi oo kala duwan oo qaar ka midaana ay ka waaweyn yihiin galagsiga aan ka tirsannahay waxaana laga yaabaa in ay leeyihiin nidaamyo iyo qawaaniin u gaara iyaga runtii waxaa la dhihi karaa waa caalam kale oo aysan waxba ka aqoonin bini'aadamka tusaale hadda majaradda ama galagsiga noogu dhow ee andromeeda galaxy ayaa waxay noo jirtaa masaafo dhan 4 bilyan oo iftiin sannadeed sidaa oo kale ayayna mid walbana u jirtaa middeeda kale balaayiin iyo balaayiin iftiin sannadeed haddaba galaksiyadan boqolaalka bilyan ah ayaa waxaa la isku dhahaa sida guud subarcluster leenaakiya dhibicdan yar ee meesha kaaga muuqatana waa galagsiga aan ku noolnahay ee milki weyga ee aan ka soo sheekeennay xajmiga iyo weynida ay ku fadhisay taas oo ka koobneed 100 bilyan oo xiddigood intaas oo keliya ma aha ee waxaa jira sidoo kale malaayiin iyo balaayiin kale oo sida laanaakiya oo kale ah oo iyaguna ka kooban intaas oo balaayiin oo majarado ama galaksiyo ah oo kuugu muuqanaya markii aad sawirkooda kor ka aragto sidii shabaq caaro oo meel bannaan ah lagu daadshay dhibic walba oo kaaga dhex muuqato meeshaasna waa galaksi ama majarad hadda dhibicdan iftiimaysa ee kaaga dhex muuqato bartamaha waxay ka kooban tahay keligeed 100 bilyan oo galaksi runtii waa wax caqliga bini'aadamka qiyaastiisa ka fog oo uusan sawiran karin xajmiga iyo baaxadda caalamkan uu ku fadhiyo middeeda kale waxaad ogaataa in daqiiqad walba caalamku yahay mid kumanaan iyo kumanaan jeer sii weynaanaya haddaba halkan markaan joogno laanaakiya intaas kadib aqoonta bini'aadamka uu gaaray heer walba ee ahaato ma aha wax uu wax ka ogaan karo xilligan ama uu qiyaasi karo waxa intaas ka dambeeya waa caalam iyo caalam kale uu alla keliya og yahay sidaas daraaddeed ayuuna alla subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu ku yidhi لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم bal ka waran allaha qaadirka ah ee koonkan quruxda weynida iyo cajaa'ibta u abuuray inta uu la ekaan karo subxaana allah haddaba caalamkaas aad u jeeddo sida allah subxaanahu wa tacaala u abuuray haddana agtiisa xitaa kama aha garab kaneeco iyo wax ka yar